وايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلامتي صحفيين الصوماليات هالقمياشة وقت كستو تاغن إن دفع الصوماليات ورقليان حقتا أوبا هين عيسيان وحن كلو سلامين دفع الصوماليات جودهان ميلكس أو أي جوغان أنا قد ما أنتو دوم هالعلين هنا أنت أسكسو كو سلا دوكتهين والله سعطان وضنك واحد وكجرا دقال dhinacyo kala duwan leh oo lagu la dagaalamayo khawaarijta al-shabaab kaasoo aan doonayno inaan dadweynaha Soomaaliyeed hadii Ilaahay uu yiraahdo si joogto ah markasta ula socodsiino horumarada iyo go'aanada iyo xaaladaha ku saabsan dagaalada dalka ka socda. Shalay xilligan oo kale waxaan ka hadlaynaa dagaalka ku saabsan dhaqaalaha oo aan rajaynayo in fariintaasi ay dadka Soomaaliyeed gaartay. Maanta waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno warbixin ku saabsan hawlgallo waaweyn oo ka dhan ah khawaarijta al-shabaab oo ku saabsan furinta dagaalka tooska ah oo dhacay maalmihii la soo dhaafay. Hawlgallo guuleystay oo ay iska kaashadeen ciidanka sirdoonka qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ah oo taageera ayaa lagu laayay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta al-shabaab. Waxaa sidoo kale la burburiyay u siday saanad ciidan iyo walxaq qarxa oo aad u tiro badnaa oo ay doonayeen inay dadka Soomaaliyeed ku laayaan hawlgalladaas oo dhacay 48 saac la soo dhaafay. Hawlgalladan waxa ay ka dhaceen Cali Guduud iyo deegaanka